xarig jarkan aad daawateen waa moolka casriga ee Samool kaas oo ku soo biiray suuqyada ugu waaweyn uguna casrisan ee magaalada Muqdisho. Samool oo loo dhisay hanaan casri ah ayaa ku soo biiray suuqyada ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho. waxaana ku yaala dhowr xarmood oo kala duwan oo ganacsi. runtii Samool waa mool qurux badan qaybo badan uu leeyahay oo waa mool heer caalami ah oo ka kooban 3 dabaq oo laga helayo adeeg kasta oo ay u baahnaan lahaayeen bulshada. xarig jarka moolkani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda, maamulka gobolka Banaadir, qurba joog, ganacsato, milkiilayaasha hoolka, haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. munaasabada waxaa ka hadlay mid ka mid ah milkiilayaasha Soma Mall, Cabdirashiid Cumar Nuur. munaasabadan qiimaha leh runtii waa qisad dheer iyo jiddeer aan soo marnay hawshan muddo 2 sano ka hor ah ayaan runtii ka nimid qurbaha aniga yar kale annagoo indhaynayno hadba maaragtay wixii suuragala ka hirgeli karo magaaladan Muqdisho loogana faa'iideyn karo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan siiba dhalinyarada ha ahaato shaqo abuur ha ahaato bilicda magaalada oo la soo celiyo maadaama ay dhibaato badan soo martay. sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladan daahfurka Soma Mall. ninkan Cabdirashiid runtii oo aniga xildhibaankiisa ahay waa nin ganacsiyadan aad ugu dheer oo meelo badan ku leh, Hargeysa ku leh, Beledweyne ku leh, Dubai ku leh. laakiin waxaan leeyahay maadaama halkan aad maanta aad meel qurux badan aad ka furtay, ganacsigaana shaqo abuur badan dhalinyarada u yahay, waliba meel istiraatiiji ah oo degmadu Waaberi uu ka furan yahay wadada Maka al-Mukarrama. waxaan rajaynayaa inuu noqon doono ganacsi horumaray. runtii aadan ugu amaanayaa anoo ka faa'iideysanaya maanta fursaddan. waxaan leeyahay balkan oo kale meeshii aan ka imaanay Beledweyne ahayn inaad geysadaan waa ka rajaynayaa maadaama mool qurux badan uu yahay. wax fiican baad samayseen, ganacsiguna mar walba khasaaro ma lahan. waa kii nabiga calayhi salaam baa u duceeyay qofku hadduu si wanaagsan oo xalaal ah u ganacsanayo ganacsiga baraka ku jirta. waxaan rabaa inaan muhiimadda ganacsiga uu leeyahay isdul taago. qofka bini'aadanka ah waxa uu haysto ayuu wax ka soo saari karaa hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiin intaba. ganacsigana waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta badan dadku ay ku bulaalaan isla markaana ay horumarka ku sameeyaan. waxa aad maanta ku shaqaysatana biritoola wax ka badan ayaa ka soo bixi kara. qof waxaad arkaysaa miis yar ku bilaabay laamiga hareerihiisa wax ku gata, isla markaana sanad kadib aad arkayso inuu qofkii kireysanayo qolol ama howlal waaweyn, isla markaana ganacsigiisii u bulaalay. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. bal waxaan dhex taaganahay caawa u jeedaan qof walba haysto 2 shilin uu wax ku sameyn karo, bilicda magaaladan uu ku soo celin karo hadduu la yimaado dalkii uu caasimadii ku qurxiyo wax qurux badan ka soo baxayo. marka waxaan leeyahay dhammaan aan maxay ahayd ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada qurba joogta inay dalkooda ku soo laabtaan, inay bilicda magaalada soo celiyaan. dalkaaga aad dhisatid waa adoo maxay ahayd horumarka adduunka ugu weyn gaaray. marka dalkeena aan dhisano waxaan leeyahay dhammaan yaan laga seexan. Som Mall waxaan waliba ku arkay caawa oo suuqyada kale ka gadisan. Computer Som iyo Maryama Style ayaa ka mid ah xarumaha Soma Mall ku yaala. milkiilaha Maryama Style iyo mid ka mid ah shaqaalaha Computer Som ayaana la hadlay. Computer Som waxaa la aasaasay 2014 sidoo kale company-ga Computer Som waxa uu ka ganacsadaa dhammaan qalabka elektaroonikada sida kombiyuutarada, laptopyada, all-in-one-ada, printerada iyo dhammaan accessories-kooda. sidoo kale company-ga Computer Som wuxuu bulshada Soomaaliyeed u soo kordhiyay laptop used dibadda ah oo isugu jira Core i5, Core i7 iyo Core i3 dhammaan noocyadooda all-in-one-ada. waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka ganacsiga ku leh suuqan oo ku yaala degmadii aan ku dhashay ee degmada Waaberi inaan ganacsi ku yeesho aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. waana
waana ku mahadsantahay gudoomiye ku-xigeenka xogayaha guud ururka haweenka qaranka booqashada ee soo booqatay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Waaberi gudoomiyaha degmada Hiilwaa dadkii booqashada noogu yimid oo xarag jarka noogu yimid aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin waana idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada